فيديو قدام بي aan sameeyo channelka waxa kaga hadlay in marxalad lagu soo wajahantaya in suuqyada caalamka ay yara daataan taana macnaheedu maaha in suuqa laga cararo oo laga boqo insha Allah taala qaabka ugu wanaagsan hadii marxaladahaas oo kale ee bear market kala galo qaabka loola tacaamul lahaa iyo mustalax mar walba aynu maqalno oo la yiraahdo DCA insha Allah taala maanta aan ku sharxi doona fikradda ka dambaysa iyo qaabka loo isticmaalo iyo istiraatijiga ugu wanaagsan ee lacagtaada ay tahay inaad u qaybisid si aad insha Allah taala suuqa ku dhaqaaq u sameeyo aad uga faa'iideed bin Allah taala waxyaabaha iyo waxyaabo fara badan insha Allah taala aan falaqayn doona maanta xayaakum Allah maadaama DCA aanu ka hadlayno waxaan naga codsanayaa like iyo subscribe channelka noo saara laanu intaas DCA anaka noo ah saanu kurino channelkayga YouTube-ka oo dad fara badan biidni Allah taala ay uga faa'iidaan hadeen mowduucayna u soo laabano labada qaab ee dadku ay ku faa'iidi karaan suuqan gaar ahaan anigu aan isticmaalana laanu wax jira istiraatiijiyado fara badan oo ku saabsan DCA-da labada u wanaagsan ayaan insha Allah taala in la shirgaraynaya intayna bilaabin DCA maxaa looga jeedaa DCA waxa weeye shortcut-ka dollar cost averaging waxay la dhigan tahay adiga oo mar walba suuqa maalgashigana adoo jadwal u sameeya ayay la dhigan tahay si aan suuqu marnaba uu ku dhaafin hadii uu daadanayo iyo hadii uu kacayaba mar walba lacagtaada guud ee aad ku gashay marka la isku celceliyo iyo meelaha kala duwan ee aad ka gashay hadhow wax ku soo baxaya sicir dhexdhexaada sicirkaasina wuxuu ku sheegayaa ina area-da aad ka gashay waana qaabka quraata ee suuqa aad kaga badbaadi kartid maadaama suuqyada oo aad iyo aad volatile u ah ta u horeysa waxa weeye qofku inuu lacagtiisa guud percentage ahaan u qaybiyo tusaale waxa ka wadaa $1 hadda doonaysid suuqa inaad maal gashato waxa wanaagsan inaad afar qaab aad u kala qaybisid 25% marba uu suuqu u soo daato boqolkiiba 25% wax ku haboon inaad dufcadaha kamida inaad ku gashid taasina waxa weeye qaabka DCA-da percentage ahaan loogu galo suuqa qaabka kale ee suuqyada DCA-da loogu sameeyo intayna gudagelin waxaan doonaynaa ogeysiyo course technical analysis iyo fundamental analysis ku saabsan u gaara aynu bilowba oo qabanaa bisha August insha Allah taala hadda doonaysan iska diiwaan gelisaan oo halka aad ka faa'iidaan culumta saxda ah iyo meesha saxda ah ee laga baran karo fundamental analysis-ka iyo technical analysis-ka ee ku saabsan cryptocurrency insha Allah taala nambarada aad ku aragtaan shaashada aad nagala soo xiriiri kartaan koorsada xaqiiqatan waxa weeye koorsyo aad iyo aad u tayo leh arday fara badan ka faa'iideen ta kale waxaan la socodsiinayaa inay yihiin koorsiyadaasi koorsyo la duubay bil aad live ku qaadan doontaan insha Allah iyo bil kale oo muraajaca muddada totalkeeduna waxa weeye 2 bilood oo insha Allah taala aad iyo aad uga farqabsanaysaan si aad u bartaan wax walba oo ku saabsan cryptocurrency haday tahay technicalka iyo fundamentalkeeda hadii aynu ku hadalno qaabka kale ee lacagta aad u qayban kartid qaabkaas wuxuu ku saabsan yahay inaad lacagtaada guud aad u kala qaybisid si bila tusaalihii $1 hadaynu ka hadalno iyo qaabka aad ugu qaybin lahayd waxa weeye inaad lacagtaada guud 12 bilood aad u qaybisid bil walba inaad lacagta aad dufcad aad ku gashid ayaa ku haboon dariiqada kale waxa weeye inuu qofku lacagtiisa guud amba lacagta guud uu ku maalgashanayo suuqa inuu u qaybiyo si isbuuca oo halka lacagta guud uu qaybiyo maadaama sanadku uu yahay 12 week uu 12 dufcadood u kala qaybiyo oo halka week walba ku galo percentage kamida lacagta uu sida isbuuciga ah inuu ku maalgashto suuqa qaabka kalena waxa weeye oo qaab aad iyo aad u adaga dad far badan way sameeyaan runtii waxa weeye inuu qofku lacagta guud ee uu doonayo inuu investment ama maalgashi ku sameeyo inuu u qaybiyo si maalinle ah oo lacagta guud intuu qaado 365 cisho inuu kala qaybiyo kadibna maalin walba dufcad lacagta kamida inuu iibsado coin ku doonayo inuu iibsado iyo haday tahay suuqyada kala duwan ee caalamka sida stock market-ka DCA-ga iyo qaabka dawladda tacaamushan suuqa insha Allah comment section-ka ugu soo qora haddii wax su'aalaad haysaana insha Allah comment section-ka ugu soo qora wanaga caawin doona biidni Allah taala haddii aad doonaysid inaad daawatid video ku saabsan qaabka DCA trade loogu sameeyana insha Allah halkan ayaad ka daawan kartaa khayr badan bay nii rajeeyay assalaamu calaykum wa rahmatullah